السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدان شيء أي خبرة قويسكو حيوصو قاتان هدي هوانيدا نينكا قبين أي لنوليدو سيدان كولا دقمي مدشان سنة أو سي حريرا ولا دقمي لكن مركليا سيدان أي كويدو إنو نينكاسو قلبيسو كسي جستي هوانيدا إنو كتب أبو شايستين إنو نعي وهوانيدا كراسدي أكجوغيدا doonayana inuu soo gabagabeeyo noloshooda oo sida ay ku kala tagaan. Arrinta kooban ninka oo markaliya hoos u dhiga wada xiriirkii qodada dheeraa ee xaaskiisa ka dhaxaysay isagoo joojiya abuuristii ambaqaadkii sheekooyinkii wanaagsanaayo u dhaxeeyay isagoo faraha ka qaada u jawaab celintii وحاسكيسا مركزتا سي فدود ودغا فران ugu jawaab celin jiray isla markaana muujiya xiisayn laan ay haweenaydu toos u dareemayso. Arrinta labaan waa less quality time isagoo siiya waqti aad u daciifa iyada inta waqtiga la qaadanayo uu yahay mid very buura laakiin waqtiga ugu faraha badan uu ku lumiyo teleefankiisa gacanta saaxiibadii iyo balwadihiisa haweenaydana uu cileeyo oo waqti la qaadashadii faraha badnayd meesha ay ka baxdo. arrinta saddexaad isagoo ku bixiya dadaal aad u yar wada sheekaysigii ay wada sheekaysanayeen ee xiisaha u sameynayay goonnida ay isku ahaayeen ama u khaaska ahaa ama shukaansigoodii lamaanaha ka dhaxeeyay iska farxintii degdega ahayd iyo surprise-ka isweydaarsan jireen iyo xataa waxyaabihii nolosha asaasiga u ahaaba dadaal aad iyo aad u yar ku bixinaya ama gaadhayaba heer marka xataa kuwa meesha uu ka saaro ay noqdaan kuwa sii dhammaanaya ama meeshaba ka sii baxaya oo sii baaba'aya. arrinta afraad ninka oo gabi ahaanba meesha ka saaran isku xidhnaanshihii dareenka shucuureed wadaagii dareenka halbowlaha ee ka dhaxeeyay isagii xaaska iyo isku danqashadii ama isku hinaasihii iyo isku masayrkii ninkuu xaaskiisa u masayrayay. haddii gabi ahaanba waxaaba uu meesha ka saaro oo ninkuu qalfoof ahaanu halkaa iskaga fadhiyo haweenaydana uu la dareen noqon waayo oo la shucuur noqon waayo oo uu la rabitaan noqon waayo oo uu danqan waayo oo uu masayri waayo oo dhinaceedaba uu kici waayo waa arrin kale oo khubarada qoysku ay soo qaataan ninkaasi inuu haweenaydaas qalbigiisu ka sii jeestay oo markaas uu ka wareegay ama dhinac kale uga diga rogtay. arrinta shanaad waa ninka oo cadhadiisu cirka ay isku shareerto waxyaabo aad u basiida oo haweenayda ay isdhaafsadaan ay ka cadhaysiiso oo uu noqdo ninku mid ay arrintaasi ay cadho gelinayso cadhadiisuna cirka ay isku shareerayso. mar kasta oo ay wax iska basiida weydiiso arrintaasi ninka ay danqayso meel xunna ay gaadhsiinayso cadhadiisuna ay noqotay mid aad iyo aad u badan. arrinta lixaad waa physical distance ninka oo ka fogaana haweenayda kala fogaada hagdii uu siin jiray laabgelintii dhunkashadii taabashadii iyo isku soo dhawaanshihii intaba kala fogaada xataa waxyaabihii guriga uu kala qaban jiray ee uu ka caawin jiray kala fogaada. arrintaasina waa arrinta lixaad ee muujinaysa ninkani haweenayda xaaskiisa ahayd inuu qalbi ahaan ka sii jeestay oo uu markaas ka tabaabushaystay ama uu dhinac kale ka fadgudinayo oo uu doonayo inuu ka wareego. arrinta toddobaad waa ninka oo ka fogaaday ama ka fogaanaya inuu xaaskiisa kala hadlo wax ku saabsan mustaqbalka arrimo mustaqbalka quseeya in la gorfeeyo
oo laga wada sheekaysto aad iyo aad uga fogaanaya qorshayn iyo rabitaan midna aan muujinayn ku salaysan mustaqbalka dhow iyo ka fog intaba. arrintaasina waa arrinta toddobaad ee iyana muujinaysa ninkaasi inuu markaa ka sii jeestay haweenaydaas ama aanu wax rabitaana, wax xiisa iyo wax jacayla midna aanu haynin. arrinta sideedaad ee ugu dambaysa, istifaac wax kasta oo la doonayo in dhibtaa lagu xalliyo ama haweenaydu marka ay soo bandhigto arrin ay doonayso ninka dhibaatadan ku timi ama isfahan la-aantan ku timi inay kala hadasho, inay isku beddesho arrintaasi muran oo ninkuu istifaaco arrintii haweenaydu ay u soo bandhigtay doonaysa inay xallisanaan uu dhooqeeyo oo uu istifaac ku qariyo oo uu ciiro ku qariyo oo uu muran ku qariyo oo lagu kala kaco. arrintaasina waa arrinta sideedaad ee markaa muujinaysa ninkaasi inaanu waanwaan doonayn, wada hadal doonayn, isla markaana xal iyo heshiis aanu doonayn ee uu doonayo inuu tabaabushaysto oo uu ka dhaqaaqo haweenaydana uu ka digarowdo. sideedaas ay ka qoraan. intaas ayaan kusoo koobayaa. farxad iyo caafimaad taama ayaan idiin rajaynayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.